kamid ah shacabka ku nool magaalada Mandera ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay warbixin shalay la soo saaray taasoo lagu sheegay in deegaanka bariga Mandera uu kaalinta 10aad ka galay maareynta dhaqaalaha horumarinta deegaanada ee loo yaqaan CDF-ta. dhanka kale guddiga qaran ee CDF-ta dalka ayaa faahfaahin ka bixiyay maareynta lacagaha lagu wareejiyo. Abdulaziz Yarow oo ah agaasimaha guud CDF-ta oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay inay jirto cabasho la xiriirta qaabka lacagaha loo bixiyo balse dhanka kale loo aaneyn karo sababo dhowr ah. waxa uu sidoo kale sharaxay in qaabka lacagahan loo adeegsado ay dabagal ku sameyn doonaan. agaasimaha ayaa ugu dambeyn xusay inay jiraan waxyaabo dhowr ah oo dhaqaalaha horumarinta deegaanada CDF-ta lagu qarash garan karo kana faa'iideysan karaan bulshada ku nool magaalada Mandera.